munaasabada Ciidul Adha ayaa si weyn looga dabaaldegay maanta guud ahaan deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud waxaana si weyn looga iiday maanta magaalada Cabud oo ay fagaarayaasha waaweyn isugu soo baxeen kumanaan qofood oo u dabaaldegaya munaasabadan Ciidul Adha maanta ay ahayd markaasi maalin Jimcaha isla markaana dunida muslimka ay u tahay maalin ciida ay ku soo beegantay maalinta koowaad ee Ciidul Adha oo muddo 3 cisho socon doona bulshooyinka ku dhaqan magaalada ayaa siyaabo kala gedisan uga hadlay isla markaana soo dhaweeyay waxaana ay ku tilmaameen laba iidood oo maanta dunida muslimka ay si weyn uga iidayaan guud ahaan caalamka idil qaar ka mid ah bulshada ku nool waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa uga warramay TV-ga caalamiga ee Royal TV sida ay ugu faraxsan yihiin munaasabada Ciidul Adha maanta oo qayb ka mid ah deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud si weyn looga dabaaldegayo waa kuwan dadkii ka hadlay maanta munaasabada Ciidul Adha halkan ka salaamaya maanta ayadoo Ciidul Adha dhammaan muslimiinta meel kasta ay ku nool yihiin waliba qaasatan ummadda Soomaaliyeed waxaana leeyahay Ciidul Mubaarak ciid wanaagsan waxaan sidoo kale salaamaya asxaabteeda Bashir Yuusuf Nadaara waliba iyo Maxamed Maxamuud Salaad iyo Maad Xasan Diiriye dhammaan wariyaasha TV-yada bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxa weeye maalin ciida waa maalinkii Ilaahay ummadiisa u soo dajiyay waa maalin Jimcaha waa laba ciido waxaan ummadda islaamka oo meel kasta joogto ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan kale ugu bishaareynaa inay muxaato ay maalinka ciida ka wada faa'iideystaan laba ciidood oo saaran weeye waxaan ku talinayaa ummadda islaamka meel kasta oo joogto inay islaamnimadeeda ay mid ka dhigto oo isku soo durto السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مسلمين كلا دوان ميل كسته جوجان عالمك وحنكو سلام يا سلامة الإسلام كمر لبعض السلام عليكم عيد ونكسن كل عام وأنتم بخير السلام عليكم الرحيم magacay waa Axmed Maxamed Cali maantiito waxaan u ciidnay si wanaagsan oo bashbashle oo barwaaqo oo caafimaad leh Ilaahay baa mahad iskale ciid wanaagsan muslimiinta meel kasta ku nool yihiin waxaan u leenahay ciid wanaagsan dhamaan halka waxaan ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu alaykum wa rahmatullaah ciid aad iyo aad u fiican ma sha Allah waa Ciidul Adha soo jeedaa waxaan isku saadamay maalin Jimcaha iyo ciid bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdinaasir Guuleed maantay waxa farxad noo wada dhammaan ummadda islaamka qaasatan ummadda Soomaaliyeed inaanu Ciidul Adha ku iidayno si farxad leh iyo dawladnimo cusub oo noo dhalatay aad baan maaragtay ugu faraxsanahay arintaas dawladda cusubna waan u hambalyeynaa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada la dhisi doona inta marka ciid wanaagsan baan u leenahay guud ahaan deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ay ka dhacayeen munaasabado si weyn loo soo agaasimay oo lagu dabaaldegayo munaasabada Ciidul Adha waxaana munaasabadan ay daa'imada kaliya ee dunida muslimku hal mar wada iidaan isku soo wada duubo maanta ay ahayd markaasi bulshada ku dhaqan magaalada Cabud mid ay isku muujinayeen munaasabada Ciidul Adha awgood farxad iyo reyn waxaana aad markaasi waxaana ay la ka bariyeen in uu dalka Soomaaliya uu ku soo celiyo nabad iyo xasilooni sanadkiisana uu ku gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo Bashir Yuusuf Nadaara TV-ga caalamiga Royal TV waqooyiga gobolka Galgaduud magaalada Cabud